ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka deegaanka Macawisleyda ayaa kooxda argagixisada Al-Shabaab ka wareegay deegaanada kala Ten Roxan Xasan Raaqi iyo sidoo kale Surumo oo dhamaantood ka tirsan deegaanada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Inta uu ku socday argagixisada waxa ay isku dayeen inay iska caabiyaan balse ciidanku waxa ay mariyeen cagta iyadoo laga dhigay wax la dilay sidoo kale wax la qabtay. deegaanadaasi ayaa inta badan waxa kooxda Al-Shabaab ay dhibaato ku hayeen shacabka ku dhaqan deegaanadaasi waxaana halkaas la sheegay in lagu hordilay horjoogihii argagixisada u qaabilsanaa deegaanadaasi kaasoo lagu magacaabayay Maxamed Weheliye sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya Janaal Maxamed Tahliil Biixi hogaamiyaha howlgalka ka socda gobolka Hiiraan isagoo si rasmi ah u hogaaminayay. dhinaca kale taliyaha ayaa waxa uu mahad celiyay saraakiisha askarta naftooda u horaya in ciidamada qalabka sida ee bulshada deegaanka u horay urka ayaa maamulka gobolka Hiiraan in halkaasi howlgallo falaran laga fuliyo isla markaana baaba loo geysto kooxda Al-Shabaab oo deegaanadaasi ka waday muddooyinkii dambe dhibaato ay ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Maxaas ee gobolka Hiiraan. degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa muddooyinkii dambe waxa uu dagaalo ku dhexmarayay Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada taasan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada la magac baxay Macawisleyda oo dadka deegaanka ku sugan. waxaana howlgalkan maanta la sheegay in lagu abaabiyay kooxaha Al-Shabaab fariismo weyn ay ku lahaayeen deegaanadaasi isla markaana ay jiraan in deegaano hor leh Al-Shabaab laga baacsaday isla markaana ciidamadu ay gacanta ku dhigeen. hubkii ugu tira badnaa ee kooxda Al-Shabaab isticmaali jirtay oo ah qoryaha tirandooriga u dhacaya laga si rasmi ah ay sheegeen in ciidamada ay gacanta uga dhigeen mar uu warbaahinta ula hadlayay taliyaha ciidanka xoogga dhulka Soomaaliya Janaal Maxamed Tahliil Biixi oo afka ku dhuftay in ay ciidanku si wada doonaan howlgalka lagu baacsanaya kooxda argagixisada Al-Shabaab isla markaana laga saari doono deegaanada kale haatan ku sugan yihiin. hubkan ciidamada tirada hubkan ciidanka ay gacanta ku dhigeen oo aad u tira badan ayaa la sheegay inay ciidamadu ku soo bandhigeen goob fagaara iyo sidoo kale deegaano hor leh oo ay sheegeen ciidanku inay gacanta uga dhigeen kooxda argagixisada Al-Shabaab oo ku dhuumaaleysanayay. waxaana jirta in ciidamada ay si wada doonaan howlgalka ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya Janaal Maxamed Tahliil Biixi oo warbaahinta si rasmi ah ula hadlayay. waxaana uu taliyuhu sheegay in ay howlgalka ciidanka ay wadaan ay aad ugu mahadsan yihiin isla markaana howlgalkan ay si balaadheen ciidamada si halkaasi looga saaro kooxda Al-Shabaab oo shacabka dhibaato xoogan xilligan ku haya. hubkan ayaa waxa ciidamadu ay sheegeen inay yahay hub aad u tira badan isla markaana ay ka carareen kooxda Al-Shabaab isla markaana deegaanada laga qabsaday ay gacanta kaga dhigeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Maxaas iyo deegaanada ku xeeran gobolka Hiiraan. dadka deegaanka oo la baxay Macawisleyda oo ciidamo ah shacab oo isku abaabulay si shacabkooda dhibaatada loogu hayo dhibaatada ay uga saaraan ayaa iyaguna in ciidamada ay garab buuxa ay ka helayaan.